muddo 8 bilood ah ayay madaafiic ku garaacayeen shacabka, caruurta, dugsiyada, goobaha waxbarashada magaalada Laascaanood ee gobolka Sool. haddana iyaga ayaa sheegaya in dhibaato loo geystay. taasi waa wax kama jiraan iyo sidoo kale daad isqaadsiin. waxaa sidaasi goob fagaaro ah oo ay joogaan mas'uuliyiin heer federaal iyo heer gobolba ka yiray hogaamiyaha dowlad goboleedka waqooyi bari ee Soomaaliya madaxweyne Firdhiye. haddaba Firdhiye waxa uu su'aal geliyay wixii ka dhacay Laascaanood iyo wixii ka dhacay Hargeysa. wuxuu sameeyay isbarbardhig wuxuuna hoosta ka xariiqay in weli ay taagan tahay dhibaatadii loo geystay shacabka reer Laascaanood, laakiin weli ay yihiin kuwa danqanaya, dhibaato qabo, laakiin aysan helin cid u garaabtay. iyada oo taas ay jirtana hadda ay diyaar u yihiin, u taagan yihiin inay ka shaqeeyaan qarannimo iyo wadajir. wuxuu farta ku goday in uu marnaba taageersaneen, aqoonsaneen uu ka soo horjeedo gooni isu taag ay sameeyaan maamul goboleedka Somaliland ee Soomaaliya. haddaba wuxuu farta ku fiiqay rag siyaasiyiin ah oo shirka Heritage ka qayb galayay oo uu duray hadalkoodii hore ay u yiraahdeen. wuxuuna sheegay in ay iyaga rabaan in arrimo siyaasadeed ay ka shaqeystaan oo u gaar ah, laakiin aysan ogeyn waxa shacabka Laascaanood loo geystay oo u geystay maamul goboleedka Somaliland 8 bil ka hor. waxa uu yiri waa in raaligelin ay ka bixiyaan ragga siyaasiyiinta ah, taageeradooda aan meeldayshada lahayn iyo danahooda gaarka ah ee siyaasadnimo oo ay ka shaqeynayaan, laakiin taasi kama turjumaysa wax ay tabanayaan shacabka reer Laascaanood iyo dhibka ay ka tabanayaan reer Hargeysa oo Soomaaliya ka tirsan. waxaan diyaar u nahay jacaylka federaalka, waxaan diyaar u nahay calanka buluugga ah inaan ku hoos noolaano, waxaan diyaar u nahay in dalkeena iyo dadkeena si wada jir ah aan ugu shaqeyno shacabka Soomaaliyeed. taas ayay yihiin kuwa ka mideysan ayuu warkiisa ku soo gabagabeeyay Firdhiye. haddaba hadalka uu durayay iyo hadalkiisa waxaa laga jeediyay shir ka dhacayay gudaha Dhuusamareeb oo Heritage ay qabatay, loogana hadlayay xaaladda siyaasadeed ee dalkeena hooyo ee Soomaaliya uu marayo. haddaba sidee ayaad u aragtaa warka Firdhiye ee uu ku duray siyaasiyiinta qaar ee ka qayb galaya shirka iyo inuu caddeeyo mowqifkiisa qarannimo ee Soomaaliya?